caawa martina ka tihiin barnaamijkan aan caawa usoo qabanqaabinay doodan ah dooda tacdiyada dhaqanka haweenka barnaamijkaasoo in badan ka faaleegnay gobolka aan soo faqurnay iyo gobollada kaleba waxay noqotay barnaamij waaqiciya oo waqtigiisa la joogo oo tacdiyada haweenka lagula kacayo hadday tahay dhanka shaqada dhanka waxbarashada dhanka kursiga marka hore haddii aan information ka bixiyo ururka Somali Organization oo loo soo gaabiyey Somaliland Health and Safety Organization waa urur ka jira dhammaan gobollada Somaliland awal mooyaane Sanaag, Saaxil, Sool, Togdheer iyo Maroodijeex intaaba uu ka asaasay xafiisyo ku leeyahay ururku waa urur muddo ilaa 4 sano meelaha shaqeynayay xubnaha gudda sare ururku kolle santarka ururku waxa weeyaan Hargeysa Maroodijeex xaggaas oo way kolle xubnaha ururka gudda sare imaamka sare ururka laga maamulaa فرع كم دويان كور تبدأ سنة نساء يرسل ururku muddo 7 bilood ilaa 6 bilood ay shaqeeyay koox tobneed kol waxyaabo uu qabtay ururka informationka ugu weyn activities-ka ugu weyn uu ururku qaabsay weeyaan livestock environment health education children and women iyo IDP sanitation ururka haddii Somali information ka bixiyo Somali asenjo ahaan ayuu ku shaqeeyaa waa non-government organization waa urur ay ku midoobeen aqoonyahan dhalinyarada aqoonyahan ka mid ah dhalinyarada Somaliland waa urur waqtigiisa loo baahnaa markii ugu horreysay waxaa ku bilaabay tareenno tababaro waxaa bilaabay mas-uuliyiin ka shaqaysay hay'adaha internationalka sida FAO, NRC, CARE iyo kuwa la midka ah waxay ku talagaleen aqoonyahankaasi si dhalinyarta soo bareen cilmiga socialka barta aan hayn healthga caafimaadka si qolyaha socialka ugu hormariyo tirneed lagu siiyo sida shaqooyinka ugu xiraysan lahaayeen hay'adaha internationalka kuwa wadaniga iyo goobaha ay ka banaan tahay shaqada hadda jeer shaqooyinka ugu badan dalkeena marka la eego waa caafimaadka marka ururkaas astaankiisu intaas uu ahaa marka hore kadibna step by step wuxuu noqday urur ka diiwaangashan ilaa heerkan Somali Organization ururku wuxuu hoos imaadaa 3 wasaaradood wasaaradda waxbarashada caafimaadka iyo kaalmaha bulshada 3 wasaarood waxaa soo raacda oo dhawaan iyada laftigeedna hay'adda shaqaalaha laftigeeda waxyaabaha ururku haddeer uu qabtay sanadada waxaa ugu badnaa tababarada dhalinyarta Somaliland lagu qabtay Maroodijeex iyo Sool iyo Saaxil sababta markan halkan waxay ahayd in dhammaan bulshooyinka reer Togdheer ka faa'iidaystaan waliba qolyaha social work ay fiican u faa'iidaystaan tirnada la ururku bixinayo ururku waa organization hoos yimaada 4 hay'adood international NRC CARE iyo hay'adan active iyo hay'ad kale lamid ah Soomaaliya مشروع وين هذا سجيو هيدا government organization campaigns كهذا هذا مشروع Somaliland Internship Coalition شراع عرفت هي Somaliland وسائل الأعمال بشو ودي هي هيدا الشغال كتير وركوا دفاع مهمة Somali هافيوكو يو أكسفورد يو سوسا sorry أفرتاس أيها مشروع شغال عربية إن دليل تدرس ما لا نوصل أيوه شغالوه. فوقتها في المسألة السيئة هاي الأرضية عن شغالين كتير مشان كلنا فوقتها برشلة فرسمنا جعلتها TVET إن مكان أصلا نوصل أيوه يعطي جماعات صباح فوقتها لفتي سوى توقف كوينة دوام على تأفري إن شاء الله على شعبنا بشأفرا حلو بلامي دونو يحلق مقالنا أيوه أليتها كور قصة نغير ما يبقى تعال سوري توبر بالوصار يحفل أقواني سيئي بشغل تقع أما وساردها ما هي القلن يو هير الكراسة قبل بقى أي شغل بهلا قلتو إنتي عن قبل كان أنا نقوى عن هيني سوري ديسا مامل كيسا دري توبرو
وتوها في وينا كوفيد-19 إن وعيدين كوفيد-19 وحنا في رمضان برنامج في رمضان dadkan noqonay masaakiinta oo weeyaan sagaal iyo toban qoys oo farqa waxa kale oo ku xigay xagga daryeelka caafimaad dadkan wadin caafimaad malaha ilaa afar bilood ayay caafimaadku si toos ah u socday oo la dadaalay yar iyo weynba ay isku jireen waxa kale aan gacanta ku haynaa waxbarashada u wadka aan awoodin ee dayarta hadii la sugayo tobanku إلى دوري لواتن ويجاني كمان مرجع جدا جبري إنسان ده كان فاهم برشة فيه قدر يو أقرب توابرات وترينه هوس مدان أوركو وأورك لنا صافسن وأوركو مدبر ثانية أبوي أنا لما بنحصل وين بشوي تقول كثير مرة برنامج دوري أنا عارف كمان صدق أوقات waxaa kaloo jiray markaan barnaamijkan aan soo shaacinay page labaad halkan laga aasaasay gobolka togna dadkiisu jiray oo ku salaysan goolka oo dadkiisa xagga caqabadeed ururka dadkiisa kaasna waa page feega oo laasaasanay page ururka lagu yaalayo website-ka information saxda page-ka soo yaala haddii tahay waxaan kusoo dhaweynayaa inta information-ka ururka Somali Organization أو برنامج كلية كمان صدق عمنا نقول إلا حبنا تيم كان يقوى بمرة كلية شغلة ونقوم نسلين برنامج كمان هذا يرتقى ونقوم ورتقلين وحالنا كمان ضلسنا ويجوا هيجوا إن شاء الله كيدنا برجع ويجوا بس هيجوا وحنا برجع وكل كذا صوب صدق ذاك والبا إن نرتقى ونقوم يقول شوينا يدوداس وأيوة حالنا بكتة ما نقول بكرة برجع ويرجع يقول بسنة تعديل فرضاً إن بس نصل على الفتوى وياه نبع قبل وإحنا قاعد على المعيش أنا الجن فيه أنا فريها ثلاثة هاي بس كان وصف وشيء ودرسني شفت أنا ولا فيها لي الحين ولا فيها لي سمك بس كصف وشيء حق ده جيس كل ما كبر الفيديو وقت ده لو تمر ورستين هاي أحسن نكى هو يدي يوراني إيش كده وحيا على الهوايو هايستا إنه أفر بلود كده يلا بقى صدق حاول هاي إنه أبغى أفر بلود وجهي إنه هاي كنا من قاضي سانتي يسقي ويوش فيها كل حبها نوع عاصة هذا الموضوع ورناي نبتدي مع عاصة كلا إن شاء الله ربنا يهدو بناي ما يسوي من سنة حق الإنسان كاي حق الإنسان كابرين مسوي يعني سبعة كل شغلنا مع عاصة إلا هاي قرن وساعات عدالة وساعات عدالة مشنا تمام ولو دامني يفرق في مرة بدأ عقول الفقر لما ما حصل البكرية لكن قام بفكرة الحكومة وسيف كل شيء بعمله مرة هوين والمختبر كمشنا عقبالها يوحنا وعشرة هوينك وسوق يسمى يوسف يعني دودية دكتور عبد السلام محمد يوسف يوصلوا كلا كرسي يعني كرسي كل يوم هوينك ويوصل يعني سيء أقوياً فضل الإسلام صدق رمضان أيوه ضد الإسلام خصوصاً هاي عاو خصوصاً هاي سيدو كله مركا وقف استعراض صدق النوع أي نوع مقدار لو بيسوي شيء وحد ويجي ولا سؤال كل قوان مركا أي دبيسدو سيدو كلنا أي سؤال معقولة أو واحد يلو بتشوفه أما إن الله سوى عنه لو أقصره يعني كيف الإنسان أو ينكر يمكن أن نقول له ويدونا دولة غير كذا هو الله واحد يجي كتبته تعدي كنا كاه وينك وحن نقول له يا بنصر أحمد نصيف معي كسره كورسا وحن برامجنا هل صغير ورمتي كبر صورتك سواء قف صور مسلمة وحاول مسؤولية سارة هاي وديتي سبرتو وأنا أتذكر وكيل مقنعين أما ترجع مقنعين أما أنا أفسرين أما أنا أفهمين يعني ما إن التموي الله بفضل تذكر الجهلاء إني كترجع مسؤولين دين تعلمه أما إن حيد كلامه سيجود قشنا هاي المخنيس أما كان معبد صورة دلو لكن قف كستو مسلمين
muslimnimadiisa ka turjumaysa inuu gashay inuu huwan yahay ayay eegi doonaan marka taasi waa mas-uuliyad guud mas-uuliyadda labaad waxaan mawduuca ka hadli doonaa mawduucu ballaaran yahay taxadiga guud oo dhan kuma wada hadli karo haweenka lagu hayo laakiin masalo iminka aad u fiday oo ah in dumarka la kufsado oo dabeetana la dilo ayaa bulshada dhaqan cusub ku ah oo aan hore ku jirin maxay shareecadu masaladan ka qabtaa ama sidee bay u qabtaa marka ugu horreysa dhaqanka noocaasa waa dembi ay qofka bini aadamkii ama ciddaa geysata ay gashay oo khasab ama lagu dirqiyey qofkii kale waxaan islaamkuna mabda ahaan ma ogola in cid la dirqiyo oo lagu khasbo waxaanu rabin wax doonana noocaas laa ikraaha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghayy alikraah fi ddiin ilaahay mabda'aas islaamiga qur-aanku inoogu sheegay wuxuu ku muujinayaa in aadamaha aan loo ogolayn in la dirqiyo in loo ogol yahay inuu xor u ahaado caqiidadiisa iyo waxa uu rumaysan yahay inuu xor u ahaado fikirkiisa inuu xor u ahaado dareenkiisa iyo doonistiisa waa meesha ugu fog ee qof bini aadmiga waa iimaan dad muslima baynu nahay dunidaa laynoo soo diray inagaa mas-uulka inaynu dunida diintaa gaarsiino xaq uguma lihin dadka aadamaha dunida ku noolan inaynu ku dirqino oo ku jujuubno inay diinta qaataan waa meesha u sarisa waxaa kaloo ay noo sugaysaa in xorriyat alamni nabadgelyo inuu qofku nabadgelyo xor u ahaado oo uu haysto badqab iyo nabadqab inuu haysto oo uu dhibaatada iyo fitnada uu ka ammaan ahaado ayay diintu inoo tusaysaa oo aayadaas aynu ka helaynaa inuu qofku noloshaas qof kasta oo bulshada ka mid ihi ku noolaado nabad waa masalada ugu muhiimsan ee aynu u baahanahay xataa marka la eego khasabka in la iskhasbo camal kasta xataa camalka caadiga cibaadada ma ansaxmo haddii la iskhasbo camalka caadiga tusaale ahaan oo kale haddii iimaanka ku tujinaya aanad ku niyad samayn oo aad karaahiyeysanayso ama lagugu soo khasbay oo lagu yidhi iimaankaasoo keliya ayaa ku tujinaya waxay keenaysaa in uu noqdo masaladaas ayna noqoto maxay ahaytoy salaadaadu inaan haysan islaamku in qof la boobo oo xoog lagu qaado xuquubad aad u adag ayaa ka dejiyey waa marka haday goor faldambiyeedku ay la xidhiidho in la dirqiyo ama cabsiin ay weheliso arrinta ah in dumarka la xoogo oo la kufsado oo la dirqiyo waxay ka mid tahay fasaadun fi lard in dunidii la kharibay oo la burburiyey ayay ka mid tahay waxay ka mid tahay al-ictidaa cala almujtamac in bulshada lagu xadgudbay oo la weeraray waxay ka mid tahay in la argagax geliyey oo nacayb iyo baqdin lagu abuuray waxay ka mid tahay in welwel iyo walaac lagu abuuray haweenkii sharafta huwanaan waxay ka mid tahay in la ilaalin waayey sharafta iyo karaamadii ay lahayd haweenku ay lahaayeen marka aynu isku dayno ama maxay soo koobayno dhibaatooyinka ugu waaweyn ee kufsigu uu haweenka ku hayo waa waxyaabo cad oo aan lahayn dayda iyo in la baadho toona waayo iminka wuxuu marayaa heerba dil oo inta la kufsaday inantii in la dilo marka intaa laga tagana inantii aan la dilin ee kufsiga kale iyo dhibaatadu soo gaadhay waxay la kulantaa caqabado aad u badan kuwaasoo ay ka mid yihiin in inantaas horta ay weydo sharafteedii iyo xuquuqdeedii iyo mustaqbalkeediiba waxay ku waayaysaa kufsiga marka labaadna waxa dhibaya kufsigu waa arin xasaasiya oo dhaqan ahaan dhulka la dhigo iyadoo aan diin ahaan dhulka dhigin baa dhaqan ahaan dhulka dhigtaa dabeedna waxa la yiraahdaa la maqlin waa ceeb
inanta saasay ku weydaa xaqeedii mararka qaar xitaa waxay weydaa inantaasu haddii ay heli lahayd isla markaa kufsigu ku dhacay daaweyn bay heli lahayd xuquuq badan ay caafimaad ahaan heli lahayd ayay weydaa dhibaatooyinka kale ugu waaweynna waxaa ka mid ah inantii iyada oo saddexda waxay ruule ugu waaweyn waxa weeye sharaf ahaan inantii dhulkay u gelaysaa inanta maxay ahayd economical way ama dhaqaale ahaan way saameynaysaayoo ma shaqaysan karto bulshadii ma soo dhex bixi karto deegaankii bulshada ku nooleedna kama dhex tartami karto taasi waxay keenaysaa inay dhaqaale ahaan hoos u dhacdo waxbarashana ma samayn karto xitaa waxaanay soo dhexgeli karin dhalinyartii iyo bulshadii ay la maxay ahayd jaan qaadi lahayd ama maxay dhexdooda sumcad iyo magac ku yeelan lahayd dhibaatada kale ee weyn haysata waxa way caafimaad ahaan oo kale way afagti garaynaysaa sababtoo ah cudurradii bay riski u tahay sida HIV iyo wixii lamid ah oo haddaan markiiba la baadhin oo aan laga daba tegin halkaa ayay riski ku galaysaa cidina ogeyn in legal pregnancy baa jira isna waxaa imanaya meeshii ilmo aan loo baahnayn oo dee inantaa ugu yimi khalad haddaba kufsigu dhibaatada ugu weyn waxa waa khasab oo wax khasaba oo foorsisa diinteennu ma ogola laakiin lama daynayo waa dhibaato dumarkii haysataa dhibaatada ugu weyna kale waxay ka haysataa haddiiba inantaasu hawshii ku dhacdo dabadeedna ay la soo xidhiidho meeshii xarun caafimaad mararka qaad waxaa dhacay inuu baaritaanku khaldamoba hadduu baaritaanku khaldamona iyaduna sidoo kale lama ogaan karo waxyaabo badan oo baaritaanka kusoo bixi lahaa haddiiba inantaa ay baaritaankeedu sax noqday oo qolyo caafimaadku caddeeyeen oo marka ay CID u gudubtayna waxa mararka qaar dhacda oo badan inta ugu badan kaysaskana dhacda in dibadda loola baxo oo la yiraahdo labadii family anaga isfahmayno xeer iyo odayaal ay eegaan xeer guud oo lahaayeen reeruhu dabeedna inantii halkaas ay ku weyday xuquuqdeedii ama shilimaadba lagu kala qaato sharaftii inantaa dhan mararka qaarna dhibta ugu weyn kale waxa weeye ninkii waxa geystay ee inantaa nabarka ku sameeyay ee victimka u ahayd ayaa mar kale haddana odayaashu ku taliyaan inuu saygeeda noqdo mustaqbal yar reer ay u noqoto taana weligood waxay ka qaadaan toromo ay la nool yihiin oo dhibaato ah oo hooyo kasta ku dhacdo oo dhibaataduna soo wajahdo marka guud ahaan dhibaatooyinku way badan yihiin inantii caqabado badan waxbarashada kale ma iman karto maxay ahayd waxaana iman karin meel kasta oo ay uga baahnayd inay nafteeda iyo faamiligeedaba ku horumariso way ka gaabsanaysaa cabsi baa ku abuuran ay ka cabsanayso labadii qof ee wala halka marayaba inay ku wada sheekaysanayaan siday tahayna inay kuba wada sheekaystaan ama qofkii bulshada badana inanta wax la gaarsiiyay ama la kufsaday ayaa ku dhiban bulshada dhexdeeda laakiin ninkii kufsaday magac iyo maamuus buu leeyahay raganimo loo arkaaba kusigu kufsaday laakiin cidda sharafteeda weeyda waa inanta cidda damage-ka ugu weyn soo gaadhaana waa haweenka waxaan soo jeedin lahaa ugu dambeynta number 1 horta in la weyneeyo oo laga hadlo culimada diintu inay ka hadasho arintan oo diintii islaamka aynu haysanay halkay ka taaganta ku siinagoo arkayno oo la wada akhriyay ayaa haddana dhaqan iyo culture bayna sare maray culimada waxaanu leenahay inay ka hadlaan oo wacyigelin badan laga qabto qolada dawladda waxaan soo jeedinayaa institutionada ku shaqale inay xeerka adkeeyaan oo inanka dhibta geysta diinta islaamka dilba ku xukunta lagu xukumo waan soo jeedinayaa waxaan kale soo jeedinayaa haweenka anigu aan ugu horeeyo inay advocate u noqdaan oo isu taagaan sidii haweenku aanay dhibaatadaas ugu sii socon xun ee foosha xun leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حويان objectives كان كهذي وحويان وام حي عقبتها هبلها كهيستا حق وحبرشة كو صدق objectives بقول خلقاي دورا عقبتي هره عقبتها هي مكتشرة يفايدة اللي هاي وحبرشة إن دمر كوحل برا أنا كسر كتير دورا عقبتها مركها حي نقول دونتها إسلام كهر الدمر كو حقوق تهلك بهايستين إسلام كمركو يمي حقوق انتهاك بهلان إمكا أو مودرن لمريو محي مريا مركا وحويان برجيو هر إسلام ككهر وحشرتي وإذا الموئدة سئلت بأي دم قتله مركا واحد قررنا سائل الحبال أولين شري قفل الحبال أولين يلا عاصية إن وحلا برانو حضرت سادينك هاي إن أنا وحبرش بياني شري قفل اللي هاي بينو سكر wuxuu anti ku yahay sharaftii iyo karaamadii iyo qiimkii bulshada in wax la baraano waxay tahay marka waxaan munaasib ahayn marka islaamka ka hor markuu soo degay wuxuu meesha ka saaray dhammaan tacadiyadii haweenka suurada soo degtay leeyahay suuratu nisaa xuquuqdoodii iyo waxoodiiba muujisay islaamku marka waa u naxariistay
imika inaga Soomaalida markaan ka hadlayno hablaha waxa tacadiga kowka Soomaalida waxa isku wadaa laba qodob oo aan isgelin waa dhaqan iyo diin kristanku ama masiixiga ama booliisiga ama yahuudigu markay waxa la isku qabto dhaqan iyo diin haday noqoto diintiisa ayuu awood saaray laakiin inagu waxaan parallel ka dhignay dhaqankii iyo diintii dhaqan iyo diin meel ma wada galaan marka mushkiladda ugu weyn ee haysata waxa weeyaan hablaha xaq dhaqanka oo bulshadeeni uma aaminsana in inaan wax baratay wax soo kordhinayso taas marka maxay meesha ka saartay in ahmiyadii hablaha aan la siin iyadoo uu dhaqanku ka hor imanayo caqabada labaad ee waxa ay timaado waxa weeyaan waa caqabad dhaqaale oo dhaqaale waxa weeyaan intii bulshada wax fahansanay ee hablaha waxbarashadooda la doonaysay waxa mushkilad ku haatay caqabada dhaqaale waxa laga yaabaa aabihii inuu wax fahansan yahay ahmiyadda hooyada waxbaratay inuu fahansan yahay laakiin uu caqabad ku noqonayo dhaqaalihi waxa laga yaabaa in xaafadii 10 qof ay u gaashaanqaad noqdaan 10 qof in 6 hablood ay gaashaanqaad noqdeen 4 inan deetana waxa awood saaraya 4 inan 6 habloodna waxa lagu haynaya gurigii deetana waxay noqonaysaa inantii halkaas lagu korinayaa waxa awood saarnaa inaanay qofkaasi gaajo aanu dareemin laakiin gaajada ugu weyn inay tahay jahliga inta dareysan way yar tahay deetana marka waxa weeyaan inantii markay weynaato nin baa loo gurinaya halkaas ay marka cawaaqi ka bilaamaysaa marka xaaladda dhaqaale waa factor aad u weyn oo waxbarashada ku ah caqabadaha soo haysan jiray ama jira waxa kamid ah deegaanka inanta wax ku baranayso waxaad arkaysaa deegaanada fog peripheralka loo yaqaano ama deegaanada tuulooyinka iyo miyada in goobta waxbarasho iyo goobta muxuu ahaayay ay degan yihiin ay kala fog tahay taasna ay hablaha kufsigiina ka hadlaysay iyo ustaadkuba ay imaadaan deetana ay mushkiladaasi ku timaado ama goobtii waxbarasho uu kufsi ka dhaco ama intay waxbarashadii u soo socoto uu kufsi ku dhaco ama intay ka sii socoto in waxbarashadii uu ku dhaco deetana taasi maxay keentay cabsi joogta oo hablihi ay kaga caagaan اللهم استعان وحي دورين جرا waxbarashada qodobka labaad ee soo raacay waxa weeyaan in aanay haysan ama ay yareed cid ay baahidooda u sheegtaan habluhu sidaan ognahay hablaha iyo rag waa laba qof oo kala jinsiya kala dareena u kala nugul dhibaatooyinka hablihi waxa kamid ah in aanay haysan xaaladaha jira u gaar dumarka in aanay bara ku haboon oo ay baahidooda gaar ahaaneed u sheegan karaan inaanay ka helin goobaha waxbarasho 99% goobaha waxbarasho waxa u badan waa rag inantiina baahi gaar ay leedahay baahidii gaarka ahayd marka inaanay u sheegan karin macallinkii soo hor istaagna maalin kasta taasina maxay noqotay marka in caqabadaha ku soo noqday ay deetana inta qaadi kari weydo dabeetana ay waxbarashadii joojiso waxa kaloo aad ku ah caqabad oo dhaqankeennuna aad u dhiirigeliya oo waxa loo yaqaan guurka degdega ama early marriage waxa loo yaqaan inantu marka waxay noqonaysaa inantu iyadoo waxbarashadii meel wacan maraysa oo waxbarashadii ku faraxsan guurka walibana laba qodob aynu kala saari doonaa ayaa aabihii wuxuu siinayaa inantii wuxuu ugu ballan qaadayaa nin waa la siinayaa inantii haddii guursato waxa environmentka wuxuu ka imanayaa inaan inaga adduunka gabadhu iyadoo hooyaaba wax baran kartaa iyadoo hooyaabay shaqaysan kartaa laakiin dhaqankeenu inaga wuxuu ka muujinaysaa in inantu haddii guri yeelato maalinta ay guri yeelato ayaa waxbarashadii ugu dambaysay taasina waxay noqotay caqabad ku noqonaysa hooyadii iyo muxuu ahaayay iyo dhammaan xaafadii hadday hooyadaasi xitaa iyadu u dhabar adeegto inay waxbarashadii u coddo waxa ka hor imanaya dadkii ay ku gaadaamanaa ama dadkii la noolaa waxa kow ka ah oo iyaduna dhibaato weyn u ah kufsigii ay inantu ka hadlaysay oo kufsigu wuxuu aad u yeelayaa saddexdii qodob ee caafimaadku ka hadli jiray caafimaadka marka laga hadlo waxa la yiraahdaa marka afka caafimaadka hadan ku hadlo waxa la yiraahdaa state of complete physical mental and social well-being marka waxa weeyaan caafimaadku waa marka qofku maskax ahaan iyo jir ahaan iyo bulsho ahaanba oo caafimaad qabo kufsigu saddexdiiba uu taabanaya kufsigu wuxuu taabanaya physically oo qofkii damage ba soo gaaraya wuxuu waxyeeleynayaa mentally oo qofkii wuxuu baran karaa markuu degan yahay
وحسلون يهاي ومسكحة يسوي دقنتهاي bulshadiina waxa weeyaan inantii la kufsaday waxay ka noqotay social stigma ay la kulantay waxa loo yaqaan takoor ama waxay ka kulantay inay muxuu ahaayay dadkii ka socnaato waxa kale oo markaa kowka iyadana inaan loo arag inanta wax baratay oo qof initiative oo wax soo kordhin kara waxa weeyaan markaa goobihii shaqo waxaad arkaysaa probability-ga imika hawlo kala soo baxay oo imika soo baxday ladies first oo inagu malihin iyo shaqooyinka marka laga hadlayo leedo female candidate spheres taa waxa ka dambe aan ku soo qaadan doona laakiin dhaqankeena Soomaaliga habluhu marka shaqo iyo inaan uu shaqo tago waxa awood la siin jiray ama la siiyaa ninka oo la isleeyahay waxba soo kordhinaya taasina maxay noqotay in markay inantii hablihii hungoobaan intaas shaqo ay ku hungoobaan marka dambana uu qofku ku dhaco social stress oo deetana uu shaqadii ugu soo dhiiran waayo waxa kale oo muhiim ah caqabadaha waxbarashada ka mid ah guurka aan lagala tashan inkastoo ay yar tahay imika laakiin bariga hore waxa dhici jirtay in inantii idan waxba laga weydiin nin la siin jiray deetana oo la yiraahdo wasidii sooran rawaayadu ku metelay ninka reerkaaga waa jaamacad baro la oranayo marka maxay noqonaysaa marka in waxaad arkaysaa marka mustawaha ay ka taagan tahay in inantu wax barato carqalada ay ku tahay waxa kale oo muhiim ah dumarku laftigooda ayaa caqabad isku ah marka la leeyahay inanta waxbarashada jecel ay doonaysa ilaa inay tertiary gaadho ay master gaadho waxa caqabad ku ah hablihii kale ku hareereysna inanta waxa la oranayaa way weynaatay may guursato may sidaa deetana hablihii marka arrimaha ku soo noqonaya inantii maxay ka reebayaan in waxbarashadii ka hadho ay reer samaysato deetana halka kaga hadho marka waxa weeyaan habluhu in iyagu isdhiiri galiyaan hooyadu wax way baran kartaa iyadoo marka reer leh waxaan ku soo afjarayaa faa'iidooyinka hooyada wax baratay markaan leenahay hooyo wax baratay waxa weeyaan gabar kasta oo female ah waa hooyo marka hooyo ma aha ta wax dhashay oo kaliya markaan leenahay bulshada markaan leenahay xagga caafimaad iyo xagga dhaqaalaha ayaan awood saari doonaa hooyadu marka wax barato waxa ugu yar muxuu ahaayay ay soo kordhisaa waxa weeyaan inay soo saarto raggan laftigooda tacadiga ku haya rag wax bartay oo waxa weeyaan wax soo saarta cilmiga diinta iyo cilmiga dhaqaalaha iyo cilmiga waxbarashada iyo cilmiga sayniska qof sidiisa creative oo yimi ma jirto hooyo ayaa soo saartay marka hooyadaas maxay noqonaysaa inay aasaaskii guriga oo marka uu noqdo hooyadaasi waxa ugu badan ay bariga dhaweed caqabadaha aan tusi karo waxa kamid ah bariga dhaweed COVID-19 ku yimi waxbarashadii la xidhay waxbarashadii online-ka lagu dhiganayay waxa ugu badan caqabadaha haysto waxa kamid ah in hooyooyinkii guryaha joogay inay ahaayeen hooyo illiterate aan waxba akhriin waxba aan qorin ilmihi yar oo khiyaameynaya marka hooyadii waxa laga yaabaa markay wax barato at least hadii primary ay gaadho wax akhri karto inay la xisaabtami karto ilmihii ay dhashay waxa kale muhiim ah hooyada wax barataa waxay soo saari kartaa ilmo caafimaad qaba ilmo waxbarashada ku wanaagsan ilmo mentality-giisu wanaagsan yahay haddii ilmo wax bartay la soo saarana dhaqaalihi adduunku kor buu kacayaa caafimaadkii adduunkuna kor buu kacayaa haddayna qodobka ugu dambeeya ku saabsan waxa weeyaan faa'iidooyinka hooyada wax baratay xagga caafimaadka ay u leedahay iminka waxa inagu badan wadamada soo koraya dhaqaalahooda soo koraya waxa loo yaqaan developing countries-ka waxa loo yaqaan maternal mortality rate hooyada isku dhimanaysa umal arooraysa hooyada umal arooraysa maxay markaa noqonaysaa in waxa uu leeyahay 99% waxa ka dhaca hooyada umal aroorta wadamada soo koraya waxa loo yaqaan third world-ka wadamada soo koraya marka waxa weeyaan waa Afrika waxa cagaha ku qaadatay iyo Asia qayb kamid ah marka waxa weeyaan hooyadu haddii wax barato baa lagu leeyahay haddii hooyadu primary ay gaadho waxay 5 jeer ka khatar yar tahay inay isku dhimato hooyada aan waxba akhriin marka la gaadho secondary-na 10 jeer bay ka khatar yar tahay hooyada aan waxba akhriin haddii tertiary iyo jaamacad gaadhana waxay ka sii khatar badan tahay tira aan cadil lahayn marka waxa weeyaan hooyada in wax bar la baraa inaga inoo wanaagsan tahay adduunka ay wanaagsan tahay qof kasto islaam iyo gaalaba ay wanaagsan tahay hooyo in wax la baraa waxa weeyaan waa bulsho wax la baray warahmatullahi wabarakatuh hadalka badin maayo waan xabeebsanahay
komishanka xuquuqul insaanka qaranka wuxuu leeyahay xeer la yiraahdo xeer 39/2010 qodobkiisa 26aad faqradiisa koowaad waxay awood noo siinaysaa inaanu baadhno wax kasta ama ficil kasta oo tacaddi u muuqda ama noola muuqda inaanu baadhno waxaan idin sheegayaa inaydinaan tacadiyada qarsan noocyada tacadiyadu waxay u kala baxaan ee haweenka ka dhanka ah runtii tacadiga la yiraahdo FGM-ka tacadiga la yiraahdo rape-ka ama kufsiga tacadiga la yiraahdo early marriage-ka tacadiga la yiraahdo forced marriage-ka iyo qaar kale oo fara badan runtii tacadiga halka ugu yar ee tacadi waxa lagu cabiri karaa waa hadal ama hanjabaad hadidaad baqdigelin wadaalika adcaf al-iimaan u maqashay waa tacadiga halka ugu hooseysa weeyaan halka ugu sareysana waa dil waxa jirto oo kale runtii tacadiyada dhinac buu ka yimaada tacadi markaad maqashid dhinac buu ka imanaya tacadiyada haweenka ee ka imanaya dhinac kasta waxa kamid ah takoorka waxbarashada oo runtii haddii waxbarashada ay ardayad ka tahay iyo haddii ay macallimad ka tahay waxbarashada runtii waan ognahay dhibaatada haysata diinteena suuban ee islaamka runtii halkay dhigtay xuquuqda iyo xaqa haweenka runtii waan ognahay oo ka wada dheregsanahay suuradan oo suuratu nisaa la yiraahdo ayaa la idinku magac daray oo xaqiina iyo xuquuqdiina ka hadlaya suuratu rijaal lameenan maqalode ragii quraanka tiinaas baa lagu sheegay dhaqankeena suuban waxa jira dhaqano activity ama talaabooyin xun oo inagu sii haray dhaqankeenu ma wada xuma laakiin in xun baa ku jirta inta xun ay ku jirta ayay ka mid tahay inay odayaasha koofiyadaha inoo sida aynu ku nabad iyo caana maalnay ee aabayaasheen awoowayaasheen walaaladeen adeeradeen abtiyaasheen ah inay sameeyaan inay ninka sharaftiisa ilaaliyaan iyagoo ku xadgudbaya xuquuqdii inantiisa ama inantu adeerka u yahay taasina runtii waa tacadi kale oo aanu isagu daransanaan iyadoo la ilaalinayo sharaftii ninka ayaa waxa la sameeyaa in la dilo sharaftii gabadha oo la qaato diyo yar ama wax yar lacag yar la qaato dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland 130 qodob weeyaan qodobkiisa 36aad faqradiisa koowaad wuxuu inoo sheegayaa haweenku inay ragga kala siman yihiin xaqa iyo xuquuqda iyo waajibaadka wixii ay diinteenu ka reebtay mooyaan ayaga u gaar yeelan ama ragga u gaar yeelan mooyaan inta kale oo dhan kala simantiin qodobada kale oo dhan 130 ka wixii ka soo haray 129 kalena muwaadiniin baa ka tiina wala qaybsanaysan muwaadiniinta qodobkaas laakiin ku gaardiiyay waxbarashadiina dhaqaalihiina ayuu ka hadlay waxa dastuurka ka soo haray waa xeerka kufsiga maalintii dhowtole la ansixiyay xeer 78/2020 isagana halku dhigay runtii haddii la mariyo hadduu aabbaha ku keeno maxkamaddu yiraahdo anigu qaadan maayo geed tagi maayo uu diido waxa weeyaan maxkamaddu de marnaba ku qasbayso in dibadda loola baxo iyada ka jecel xeer laalintu in la mariyo dastuurka in la mariyo xeerka loo waafajiyo waxa kale oo jirta waxaan ku soo gabagabeynayaa talooyin aan kula dardaarmayo haweenka annagu runtii xafiis baanu fadhinaa xafiiskayga dhibaatooyinka ay dumarku tirsanayaan ee noo imanaya iyo kiisaska soo xaroonaya you can image waxa ka badan kuwa guryaha kuwa taadiyada guryaha ka haysta ka badan taadiyadan la arkayo ee dibadda jira
tacadiyadaasi waxaa loogula kacaa waa haweenka oo keliya. waxaan u mahadnaqayaa runtii maxkamadaha kala duwan ee gobolka iyo xeer ilaalinta oo runtii u taagan u heegan oo aan markhaati ka ahay wixii tacadiya ee jira inay runtii ay ka dhiidhido oo ay runtii ay ka xigaan iyagu in sharcigaa la waafajiyo innagoo iska qabanna odayaasha lacagta qaadanaya ee gabadha laga qaadanaya 1500 waxa ka badan runtii xeerka marka qodobka lagu qaado ee maxkamadda la taago ee la xukumo magdhowgiina way yeelanaysaa qofta haweenka ninkiina waa la ciqaabayaa waxa weeyaan taasina fahansaneen waxaan idinku bogaadinayaa in aydinaan aqbalin forced marriage ama guurka qasabka inaydinaan aqbalin guurka hore ee uu as a gift loo siinayo qof la oranayo iyadoo yar inanteer la oranayo kaxayso hebelo inanteer taasna waan idinka digayaa waxaan idinka digayaa inaynu aabayaasheen si kale wax ugu sheegno oo aynaan aqbalin marnaba hooyada iyo aabbaha unba aqbalaya in geedka la tago laakiin dad badan oo aanu aragnay oo aanu sharciga waafajinay runtii aanu ku daba taagnan maxkamaddu intuu socotay kiiskaasi de waxa weeyaan ay hooyadeed iyo aabaheedba ka goonaayeen inay maxkamadda inanteeda ugu aaraan waa go'aankaa uu midho dhal buu noqday xabsigaa weyn baana ku jiraan dadkii raggii arrimaha geystay aad iyo aad ba umahadsantihiin qaranka jamhuuriyadda somalilan markasta wuxuu taagan yahay ilaalinta jidh ahaan iyo nafsi ahaanba ee haweenka qaranka jamhuuriyadda somalilan waad islaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqoon-yahanada Professor Axmed Dr. Cabdisalaam Maxamed Yuusuf aqoon-yahan Hodan Cismaan Maxamed sidaad ogtihiin ururkan Samraar anigoo aan jeclayn inaan ku leexdo maxay ahay tolay mowduucan oo ay u joogaan aqoon-yahano karti u leh oo loo soo xulay inay ka hadlaan wuxuun baan yaro eegi oona maynta leeyihiin siin ururkan Samraar oo aynu ognahay waxyaabihii ay qabteen muddadii yareyd ay taagneen ururkan Samraar qaybtiisa Burco oo hormuud u yahay Cabdirasaaq Yaalla Cusmaan intii uu jiray waxyaabihii uu qabtay waa waxyaabaha indhaha laga qarsan karin waxaana uu yahay mid markasta u taagan waaqaca iyo wax ka beddelka waaqaca maanta jira waxaan leeyahay dhalinta aqoon-yahanka waa kuwa waddanka u maqan waa kuwa la doonayo inay waaqaca wax ka qabtaan waa kuwa la doonayo waaqacan maanta taagan inay beddelaan una beddelaan waaqac la qaadan karo waad ogtihiin waxaynu ku jirnaa marxaladaasoo ay tahay marxalad ay talinayaan dad waaweyn ama odayaal iyaga oo maxay waxyaabo badan oo maxay ahay toolay ka hor imanaya diinteennii ku dhaqmaya markaa innagu waxaad ogtihiin inaynu nahay dad islaam ah waxaad ogtihiin inaynu nahay dad dhallinyaro ah waxaad ogtihiin in waddankeennu yahay waddan curdan ah waxaad ogtihiin waxbarashada maanta innagu aynu wadnaa inay tahay mid waaqaca beddelaysa oo waaqacan maanta jira ee tacadiga halkan lagaga hadlayaa ee loo geysanaya dadkiina dhalay walaalaheen iyo ciddaynu ku noqonayno kaa lagu soo diyaariyaya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marti sharafta aqoon-yahanka waxgaradka iyo mar labaad professorska kala duwan ee halkan fadhiya aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantiin aqoon-yahanka qabeenka iyo bulshada bulshooyinka reer qodobada baan u salaamayaa runtii sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen barnaamijkan dooda cilmiyeedka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay golayaasha noocana malaha gobolada bershadaa runtii ugu yaryihiin laakiin qodoma ahaan aad baan u danaynaynaa oo waxaa weeyaan waa dhibaataan runtii dareemayo haddii maxaan ku dhahdaaye laga hadlo discriminationka ama waxa loo yaqaano tacaadiga haweenka dhaqanka ah
waqti xaadirkan ama sanadadii u dambeeyey sida 2021 runtii aad bay usii badanayaan oo mataqaanaa imika waxay gaadhay sheeko kufso maxaan ku dhahay kowkadasi ayay maraysaa run ahaantii waa wax aad looga naxo maxaan ku dhahay soo badanaya sidoo kale wax loo yaqaano waxyaabo badan baa dabada ka leexaya kufsigan iyo ama tacdiyada runtii caqligu maaha kufsiyo keliya laakiin waa emotional qofkii oo wax loo waryeelayo ama wax loo yaqaano jirkii ama la dilo ama maxaa la yidhahdaa ugu yaraan qofkii oo magac xun loogu yeedho waa tacadi laakiin marku soomaali ahaan kuma baraarugsanin oo waxaan aaminsanahay ama u qarax maahan dhaqanka wax loo yaqaano traditionalka systemkeenan hore runtii wax weyna yeelay oo dadka ku baraarugsan baan ahay inaynu wadatalgalano because of maxaan ku dhahay waa tacadi dhaqanka liftarkiisaa la iska tacadiyo oo gabadhii maxaan ku dhahay lama geliyo tasgaraynayo oo ahmiyad gaara lama siinayo ama inay waxa loo yaqaanaa kind of maxaan ku dhahay mataqaanaa inay alaab oo kale tahay xitaa anigu waxaan ku baraarugsanahay haddee dadkan maaragtay ishe xaasaska ah in ay tacadiyagu loo kulmaan iska daa haweenkayga maxaan ku dhahay weli dumarka sidoo kale bulshaduna kuma baraarugsana cawaaqibxumada ka dhalan doonta maxaan ku dhahay kufsiga ama waxa loo yaqaano tacadiyada ka dhanka haweenka oo xanuunadiiba faafaya kosofti qof aan la garanayn ama screenka lagaa soo maray ayaa dee ku yeelaya marka in xanuunada magaranaysaa communicator diseaseka iyo nin communicator labadu way ku faafayaan sidoo kale waxa consequence noqonaya wax loo yaqaano nabadgelyo daro horumar la-aan shacabka iyo qof iyo maxaan ku dhahdaye qabiilo iyo maxaan ku dhahdaye wax kale oo sii kala baxbaxa waxyaabo badan ayaa runtii ka dhalan doona boolisyada lagu hagaagaykaran karo iyadoo aan la samayn weliba researchyo wanaagsan oo maxaan ku dhahdaye midyada lagu siibayo laakiin waxyaabaha la doonayo in bulsho ahaan ama dhalinyarada noocan ama goobahan oo lagu furna waxa weeyaan dood cilmiyeedka badinay ogaadaan adiisti maxaan ku dhahdaye in iyagu solution noqon karaan oo ibaatejada iyo fariimaha ay qaadi karaan oo ay ka mid yihiin in dee public awareness la sameeyo oo bulshadii lagu baraarujiyo dhibaatada iyo cawaaqibxumada ka dhalan karta tacadiyada haweenka maadaamay haweenku yihiin hordhabaysa bulshada maadaamay haweenku yihiin soo saarayaashii maxaan ku dhahdaye hogaamiyeyaasha beritoole dhakhaatiirtii macallimiintii ama bulshada addoonkeedii iyo labeenteediiba soo saaraya sidoo kale gaamana dhalma maxaa la yidhahdaa waxa loo yaqaano kanasidibayaba taasina waa hagardaamo bulshada oo laftarkeedii maadaama bulshada waxaa qaadaba ama sharcigaa qofka kaa celinaya ama waxaa kaa celinaya waxa loo yaqaano intuitive feeling ama dareenka garashada waayo labada qofba maxaa kale dabada noqda bulshada markaa bulsha ahaan haddii sharci aadayaanay jirin oo qofkii xadgudubka kugu sameeyey ama dhibaatada kugu sameynayay kaa daldaya ama maxaan ku dhahdaye kaa xakameynaya waa in macnihi dareenka garashada qofka la dhiso oo bal inuu inankan walaashir yahay oo aan waxba la yeelin oo macnihii inankan bijada lagu celin inankan aan barashada loo dirin laakiin labaduba ay helaan xuquuq suur siman oo dheelitiran iyo maxaan ku dhahdaye cadaalad sidoo kale in maxaan ku dhahdaye wadamada horumaray maxaan ku dhahdaye ka badqaba wax loo yaqaano dhibaatadan ama soomaali ahaan inkaano la noolnahay bali koobi mekanism ama istiraatiijiyad runtii macnihii garaadkeena iyo aqoonteena iyo bali qofka inoo xuquuq leeyahay maadaama uu ilaahay waxa ugu wanaagsan ee adduunka dunida u abuuray uu yahay qof biniaadana sida inagoo ku baraarugsan haddana balbo inaan gabadhii waxba la yeelin oo macnihii ay xaqeeda iyo magaranaysaa sharafteeda iyo dignitigeedaba aan waxba la yeelo runtii ayaanu maxaan ku dhahdaye inagu doonaynaa inaanu baawargalayno oo magaranaysaa community advocacy badan la sameeyo maadaama uu ahaa lecturekiisu ama doodiisu ay daarnayd wax loo yaqaano diintu door intee leeg bay ka qabtaa ama maxay ka qabtaa tacadiyada haweenka tusaale ahaan waxaa jira professor raalli oo professor waxaa jira tusaale ahaan qof leh power hadday tahay financially hadday tahay magac ama positionno fiican bulshada ku dhexle magac iyo mansabba
sidee buu u dabri karaa sharcigu ama waxa loo yaqaano diintu xakamaynta leeg bay u noqon kartaa ama u awoodsiin kartaa qofkaas oo kale qofkaasina qodobood muhiim baa looga baahan yahay inuu leeyahay qof caqli qaba oo miyir qaba oo xiskiisu dhan yahay inuu yahay qof dee mukallafahoo qaangaara inuu yahay laakiin ma tixgeliso qofku inuu hanti leeyahay iyo inuu xil leeyahay iyo inuu lacag leeyahay midna ma tixgelisa qofka qof ahaan ayay ula macaamishaa dee diimo kale oo sidaa u dhaqmi jiray oo reer binu israa'iil ay ka mid ahaayeen way jireen oo qofka sharafta lehna si ula dhaqma qofka kale ee caadigana si ula dhaqma laakiin diinta islaamku sharciga markay hortaagan tahay waxay ula dhaqantaa si siman ma jirto sharaf ay gaar u siiso qof lacag leh iyo qof adduun haysta laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay xeerarka dalka innaga waa laynoo dejiyaa inagu ma dejisano marka xeer laynoo dejiyaa adar xeerkan waxaa dejiyay qoladaa kale sharafta iyo maamuuska u kala samaynaysay qawaaniinta iyo bahalada marka iyagiibaa xeerarkeennii gacanta ku haya iyagii baynu daba fadhiisanaa marka nolosheennuna ma saxmayso inta aynu nolol aynaan lahayn aynu ku salaynayno oo aynoo noqonayso dabaro iyo seetooyin marka xeerka maanta yaalla ama maxkamad ha yaalla ama meel kale ha yaalle ama baarlamaanku ha soo maray ama meel kale yaanu soo marine xeer noloshan iyo dadkan u dan ah ma aha marka xaqa laga hadlayo qofkuna lacagtiisa iskuma difaaci karo islaamka qofna sharaftiisa iskuma difaaci karo hadduu madaxweynaha dalka yahay oo uu kiiskan galo wuu la siman yahay qofka caadiga ee kiiska gala runtii aad iyo aad buu mahadsan yahay professorku su-aasheeda labaad waxa weeyaan aan weydiinayno xamda hodan absolutely halmaan hadal kuma jiro maadaama ay inagu aynu haweenahay xamdaay oo mar kastaba aynu nahay victim bulshada ah oo ay dhibtu inaga inagu dhacayso oo aynu nahay dhibanayaal goobihii siyaasadda iyo masraxyadii lagu jaangoynayay dhibtan aynu ka madax bannaannahay oo traditional leaders ama waxa loo yaqaano xeerbeegtida ay hawsheena mar kasta ay gorfeeyaan ka dumar ahaan talo hawshaas sidee baynu uga gudbi karnaa si aynu haddii tusaale ahaan oo kale gabadhii markay foolanayso oo kale qalliin ay noqoto ninkii baa la odhanayaa saxeex markaa mar kasta bulshada victim baynu ku nahay sidee baynu uga baxaynaa xaalad intee leeg istaraatiijiyad bal maxaa initiative oo inoo samayn lahayd aad bay u mahadsantahay walaal raxma su-aashaad weydiisay mar hadday tahay waa ta dhibaataduba ka taagan tahay halkii xeerarka ama wax lagu jaangoynayeyna cod kuma lihin oo waxaynu odhan karnaa waxaynu nahay the voice of the voiceless baynu ka nahay halkaa waayo ma gaadhi karno lambar weyn oo aqlabiyad lana kuma lihin meelaha maxay dhahay ama golaha baarlamanka ama maxay ahayd golaha guurtida oo xeerarka inta ugu badan lagu soo ansixiyo sababtaas mar hadday tahay ta dhibta keentay waxaan odhan karaa hodanaha waxaan anigu soo jeedin lahaa inaan kaga baxno horta lambar 1 dumarku aad bay u badan yihiin nimankana inaga doorana xeerarkan iyo waxanba horumariya ama baaskareeya dumarku hablaha sharaxan ee musharaxiinta hadday u codayn lahaayeen horta waxbaynu ku yeelan lahayn ama xeer baynu yeelan lahayn marka inta laga imaado mar hadday tahay raggii uun kuwa aynu u daba fadhinaa warba ragga waxaanu u soo jeedinaynaa xeerka kursiga in la tixgeliyo oo jariimad lagu sameeyo oo dil noqdo ninka ina kubsada ayaanu u soo jeedin lahaa inta aanu ka gaadhayno haween ahaan inaanu gaadhno heer aanu anagu intaanu istoorano number coda ku yeelanayno meelaha lagu qoraayo xeerarkan ama lagu baaskareynaayo ama lagu ansixinayo inta ka horeysa in aynu samayno wacyigelin in la sameeyo goobahan iyo meelo ka badan oo kaloo lagaga hadlo in la sameeyo text message iyo wax lagu wada xidhiidho oo aan xaaladdan waa la qariyaa si aan loo qarin wax walba markuu hadalkeedu bato go'aan baa laga gaadhaa in stiil la qarinayo xaaladdan go'aan lagama gaadhi karo markaas si xaaladdan horta aynu kor ugu soo qaadno waa inuu bataa ka hadalkeennu iyo diyaargarowgeennu gaar ahaan haweenka aad ba maadsanta
أكبر ما تنتهي ولا الغضب إمكان واحد نقص السقينا قبل جودي دوطة واحد سؤال شيء قدام بيسوي دينية دكتور عبد السلام دكتور waxaan leeyahay kulli waxa adigu qayb ka ahayd waxbarashada haweenka caqabado badan baa ka jira oo ay ka mid tahay intii markii la kufsado kale goobtii waxbarashada iman kari mayso oo waxa la oranayaa social stigma ayaa ku dhacaya wahiblaayadii la farmeeyay iyo maxaa la yiraahdaa dacaayadaha iyo suuqa loo maraya runtii oo iyadaaba macnihii depression badan ku dhaca ama wax loo yaqaano stress marka sidee baynu u jaangoyn karnaa ama u determine garayn karnaa xaaladaha noocaasa si ay inantii waxbarashadeedii iyo horumarkeedii iyo qaybihii kale nolosha inay uga hadhin runtii bismillah alxamdulilah waa su-aal maangala raxma waa mahadsan tahay marka laga hadlayo de kolley horta qofkii markii hore waxaa ku dhacay taxaddi jinsi تعديها جنسي وحو وحيلي أنت أي نرشة كل هيدا مسكحان يو شدهان يو بالشهان بوحيلي تكلأ سير راعي سواء حويان إن بالشدي أي كلا كلام هذا التعدي كلا إن القف كلا فقوقه وكان فقوقاس وحال الجهر تيجرات وقت بوق هذا دونا وحمالين تذكر الله الشيء إسلوي كوحي هذا نقدر نقول معها waxaa laga wacyigelin karaa dadka in la sameeyo community mobilization waxa loo yaqaano in dadka wax la gaarsiiyo in dadka wax la baro in dadka message recurrent oo ku soo noqda muxuu ahaay in la baro deetana waxay qaadan doontaa waqti in dadka in la yiraahdo qofkan waa victim taadi baa ku dhacay taadi labaad ha ugu sii darina marka waxa weeyaan in qofkii bulshada inta recovery-ga uu soo qaadanayo uu bulshadii ku soo dhex noqonayo inaanu bulshadii ka saasin waxay qaadan doontaa waqti aad u fudud laakiin saanteeda inaan laga caajisin baan soo jeerin galaya hore u soo noqotay aad iyo aad ma hadsantahay doctore malaha waxaynu hadda gaarnay gabagabadii dooda kullay waxaynu ka hadlaynay wax loo yaqaano topic xasaasi ah oo qof waliba gaarkiisa u dareemayo ama qof kasto dareen garasho leh runtii waan hubaa hablaha inay su'aalo badan xagxaganayaan su'aalaha badan aad xagxaganaysaan idin xagxaganaya kollay haween ahaan waan idin dareensanahay ragga qudhoodu raggu iskuma jiro rag badan oo wax bartay baa jira oo runtii garan kara dhibaatadan hadda taagan marka wixii su'aalaad qabtaan waad soo weydiin kartaan hodan iyo cabdisalaam anna waan kalkaalin doona وهورين حب بلابي مقع إلهي سبحانه وتعالى من لبات كوانت سلامي وحليها بين وناكسن مكستحاق وحنون هاد علينا يا أورور كان سواء بابلي دباتة بريهان صوفر بدانيسا سمران إنكستان تعيرو سوچيدين عيدين سوچيدين لها أورور كان dadka ururkani wuxuu imika magaciisu waa English marka waxaan soo sheedin lahaa in luuqadeena Soomaaliga ahna aad ku turjintaan waayo bulshadeena odayaasha ama ciyaalkeena waxba baran waxaan fahmay ama dadka waaweyn waxay moodayaan in malaynayaan luuqadan qalaadeed wax kasto board kasto ku dhagan inay hay'ad ka dambayso bay moodayaan marka waxa oran lahaa in luuqadeena Soomaaliga ahna aad ku dartaan oo ku turjurtaan taas ay idin soo jeedin waayo dad badan baa khalad fahmay oo moodayay inaad hay'adahan ama dad kale aad u shaqaynaysaan oo u socotaan waxyaabo kale maxay haytay gudbinay su'aasheeda aan u gudbo maanta maxay tahay sababta ay u dhacayaan maanta iyadoo aynu filayno oo wadankeenu shalay ka hormarsan yahay dadkeenu ay waxyaabo badan barteen waxbarasho ahaan iyo diin ahaan in dhibaatadii tacadiga ee dumarku ay maalinba la timaado weji cusub aan wejigii hore ka sii xun maxay tahay sababta sii kordhinaysa waxan su'aal kale aan qabay oo weydiinay xagga diin ahaaneed laakiin waan malaynay inuu maqan yahay
مين سنة تديني تشريعات الإسلام كما شريعات الدينية ما دام يدد إسلام النهاي إنه بقول كيف بقول هبلها هدين النهاي أنا جاي وحنا كل واحد دين تنوتري وأنا مهم إنه قف دينتي إسلام كابرته وكل هذا لكن أنا كاجا إيمان مالك أنا وحيابك لو رسول دجي أنا كاجا إيمان السؤال شيء واحد تهاي إن قبل الوقوف صدا oo isla ninkii kufsiga u geystay oo hadana guri loogu hooyo loo guuriyo shariicada islaamka maxay ka tiri labada su'aalood ma qaba wajilaahi wa barakaatu magacay waa barwaaqo xirsi muuse kulli waxaan ka mid ahay dadka halkan ka soo qayb galay madashan qiimaha badan leh waxaan qabaa su'aashaasoo goobo badan oo mawduucan oo kale lagaga hadlayay aan weydiiyey dad badan oo mawduuca soo jeedinayay laakiinse aanay cuntamin jawaabtaysiisay kalsooni 99% ayaan ku qabaa qofka aan su'aasha weydiinayo jawaabta uu siin doono insha Allah kana rajaynaya aqoon ahaan inay tahay qof tababaran waxaan ku weydiinayaa walaalo boqolkiiba maxay ahaydey ragga boqolkiiba boqol ma wada xuma sida aad sheegtay ee afeefta ka dhigatay sidoo kale ma wada xuma oo afeef baabad ka dhigato hore aad uga sii hadashay taas oo waxba ka weydiin maayo laakiin se walaalo maxay ahaydey dhaqanka Soomaalida ee mintidka ku ah cadaalada inay heli lahayd ee mintidka ku ah sharciga maanta diintu ay ka qabto maadaama hadii xataa sharciga diinta maanta aanu inoo oolin maxkamadaheeni oo inoo yaalan sharciyo ay qoreen dad ajaaniba oo adduunka kala ah sidee baynu ka gaarsiin karnaa oo aynu ka diinta u gaarsiin karnaa oo aynu uga gudbi karnaa dhaqankan mintidka ah ee cadaalada ka dheereeyay hablihii Soomaaliyeed ee dhibanayaasha u ahaa ragga rag wada waraaba ma aha ana afeeftaasaan sii dhiganaya horta waad arkaysaanoo arrintu waa xasaas khadarow laba su'aalood baad weydiiso mid waxay ahayd sidee bay cadaalad ahaan ula qaybsanaysaa dambigii mar hadda iyadu qayb ka ahayd adeerkoosh kalena waxay ahayd inanta aqoon-yahanada ee waxbarata ama digtoorada ama caafimaad ha barata ama cilmi kale sidee bay iyaduna waa tan oo ninkii dhulka ahaa ee balwada raggii waxa tiri waxay u badan yihiin qayb levelkii hoose ah intii sare la isku gaari waayo wuu noqday haddaba inanta aqoon-yahanada ee wax soo baratay iyadu waa another level iyada kuma xisaabtamayno kufsi kuma dhaco badan taadina kuma dhaco cidda ugu badan ee victim-ka ee dhibaatadu gaadha waa horta child dadka loo yaqaan waa under age waa below 18 waa wixii ka hooseeya marka ma oran karnaba umana u badanaana mid la gaado ama nabar lagu dhufto mooyaane ma jirto inan nin ula bambaxday iyadoo aqoon cilmi iyo diin bale xaaraan iyo inay meel qabato taas waan aaminsanahay sida adigu aaminsan tahay inay qayb ka yihiin dambiga dumarka xagay ula qaybsanaysaana wal gabadhu maxay la qaybsataa iyadoo waxba uma hadhine maxaa ugu weyn wax sharaf baa ugu weyn inantii markii la kursaday sharafteedii bay weyday inanta sideen wax u saari karnaa waa nimanka waxa laga yaabaa habeen oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa wadnaa ku cadays caaway soo bax habeen dabay soo bax habeenka ku xigay soo bax adiga abaabulaya in badan waxa laga yaabaa intay sadkayso aakhirka inaad ka soo dhacdo waa bilaadan way dhici kartaa laakiin marnaba rag walaal iyo dumarku uma soorna tacadiga mar walba waa ninka sameeya dumarka ilaahay wala xishood buu siiyay waanaynu ognahay wax badan iyagu ma fududeeyaan kagamana qayb qaataan laakiin waa ragga sababta mar walbana ragga ayaaban u tuuraynaayo leenay lama mariyo xeerkii ay lahaayeen waayo ninka inta la xidhoodayaal iska arkaan in la sii daayo inan dhanbaa weyday mustaqbalkeedii sharafteedii iyo cisigeediiba ku weyday meesha waa maxay sababta marka ay maxay la qaybsataa iyadu ma joogtabe down weeye way dhimatay iyadu marka waxa loo xunooli ma jirto waa maasanta walaa aad bay xoolo u mahadsan tahay cabdisalaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحني مقعي وبرواقه وحني مرلبات مشرحي لقد دودي كل دودة بربر بويا رفورتها هي حق ينمض كل حق الرجال هذا يقول شوقة هذا نسأله يجي جواب دونين تان كودين يوم اللي بقى قضاء ينمض استقعد الكوا كيلا ده وحن كودين marka ay leeyihiin inamadu guurkii baa meherkii baa lagu qaaliyay ama meherkii baa dumarku inay meher iyo qiimo dhimis ay sameeyaan
waad ogtihiinoo inanta waa lagu soo tabcaa bulshadana waxaa bedesha gabadh marka aanu meherka dhinno inamadu ay qiimo jaban ugu helaan bulsho ahaan koboc ahaan dal ahaan dad ahaan sidaynu noqonaynaa waxaana lagu eedeeyaa haddaanu hablanahay dumarku way lacag jecel yihiin war waa run lacagta waanu jecelahay lacagta waanu jecelay laakiin maxaan u jecelnahay waxaan u jecelay inaad qurux badnaato waxaan u jecelahay inaan maxay yeedii meesha aan ku noolahay iyo dalka aan ku noolahay ay qurux badnaadaan waxaan u jecelahay inaad adigu wax noqoto waxaan u jecelahay inay caruurtaydu aanay ku noolaan nolol daciifnimo ah bulshaduna ay kobocdo lacagta markaas sidaa darteed baan u jecel horta lacagtaana khalad fahmina su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye war marka aanu maxay hayday aanu meherka dhinno ma inaad gacmaha laabataan ba doonaysaa بسم الله الحمد لله ربنا نستعين على الدنيا والدين سؤال معقولة لكن marka laga hadlayo horta meherku waa very sensitive weeyaan dad badan waxa uga soo joogeen way jiraan horta meherka marka laga hadlayo waa deyn haddii imika lagu yidhaahdo adiga barwaaq ahaan bakhaarkaasaa lagu furayaa waxaad awooddo oo deyna qaado waxaad qaadan kartaa waxaad iska bixin karto mise waxaad qaadan kartaa wax allaali wixii gacantaadu ay goyso marka waxa weeye waa deyntu maadaamay deyn tahay ninku wuxuu jecel yahay maadaama xaq ay tahay oo hadduu dhinto xitaa aan laga daynayn wuxuu iska bixin karo inay wada qaataan xaaskiisa marka waxa weeyaan tan kale ah farxadda iyo waxa isku xidhan lacagtii lacagtu sariir way kuu jari kartaa laakiin farxad kuma jari karto meel wacan way kuu jari kartaa laakiin deganaansho kuma jari karto waxa wanaagsan labada qof iyagoo isku qanacsan dhaqaale aan awoodda la saarin inay muxuu ahaayey sida isugu dhowrsanaanayaan ay isugu dhowrsanaanada waxaan dhiirigelinayaa marka intay labada qof ay xagga dhaqaalaha awoodda saari lahaayeen inay noloshoodan kale ay u tabcaan ay sidii u qurux badnaysiin lahaayeen iyo farxaddooda labada qof farxad waxay heli karaan iyagoo qadiifad kuwada hurdi farxad heli karaan iyagoo saro iyo jardiina joogana farxad way ka degi kartaa marka dhaqaalaha iyo farxadda iskuma xidhna mar walba waxa wanaagsan in farxadda awoodda la saaro aad baa mahadsan gabagabadii barnaamijku inagu dhowahay markaa walaashin raxmaa inoo soo xidhaysa oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ee ururka samraar inoogana timina hargeysa martina inagu ah markaa kusoo dhawaa rabo بسم الله runtii aad baad u mahadsantihiin mar labaadba waayo waqtigiinni baad nasiiseen de kolley hortu malaha rag iyo dumarku way dee xabatoojin baan horta ugu baaqaynaa reer burco maxaan ku dhahdaaye hortu waxa doodeennu waxay ahayd wax dee waaqiciya bay ahayd oo dad dee aqoon-yahana baynu nahay oo maxaan ku dhahdaa figures waa bulshada in maxaan ku dhahdaa inuu sida u hadalno ma garanaysaa dadkaan waxba barani waa laga yara qurux badan yahay caadiyan waxaynu muhiimadda saarayna inaynu fariin qaadno caruur yaryar baa xaafadaheena jooga dad maxaan ku dhahdaa relative-keeni baa miyiga degan so many maxaan ku dhahdaa bulshadeenna ah ayaa maxaan ku dhahdaa jooga oo aan waxna qorin waxna akhriyin ayaa bulshada ku jira marka inagu sidaynu bulshada xakamo ugu noqon lahayn wax badan oo aynu ognahayna aan u faafin lahayn dhibaatadani ay yaraato barnaamijyada noocaas ayaynu doodeennu hortu budligu ahaa aqoon-yahana waynu nahay negotiationka noocanina bisaraaxa ma aha in maxaan ku dhahdaaye ay wax dee sii fidiyaan oo xagga negativeka laakiin waxa weeyaan inaynu positive ahaan ama fariimaynta wanaagsan aynu qaadno waxyaabaha qaar malaha waxba iskaga khaldan waxa loo yaqaano meherka waxaa ka hadli kara labada ruux ayaa ku heshiin kara kitaab bay ka dhigan karaan lacag bay ka dhigan karaan dahab bay ka dhigan waxay doonaan bay ka dhigan karaan hadday doonaan way dad nolosha fahansan oo digital baynu maanta nahay dunida casriga baynu joognaa fariimaha noocanina inaynu weelayno weeyaan oo aynu u samayno ma garanaysaa aynu sheer batonka taabano runtii intanoo kale waa inaynu caawa aynu dhowr kunoo qof gaadhsiinaa si aynu xakame iyo dabar ugu noqonno bulshada inteena aan waxna akhriyin waxna qorin hablahana mid baan odhan lahaa oo waxaan odhan lahaa
kolley waxyaabaha meelaha aynu ka daroorayno ama uu ka jiro ma garanaysaa xagaldaac waxaa ka mid ah miisaskii lagu jirayay siyaasadda ayaynu ka nahay ma garanaysaa aynan waxba ka ogeyn marka waxaynu odhan lahayn bal doorashaa soo socotee kolley balmaayirka gobolka ragga u diyaargarooba absolutely inaan waxaan rajaynayaa inay sanadka 2021ka ay gobolka ragga ka noqoto balmaayir insha Allah taala dhowr habloodna aynu ka darno golaha wakiilada inahaasaan ku soo gabagabeynaya aadna wada mahadsantihiin aad iyo aad wada mahadsantihiin runtii